qarax miino lagu bartilmaameedsaday ilaalada gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu soo waramayaa inuu dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh waxaana ku dhintay 6 askari oo ka tirsan ilaalada gudoomiyaha iyaduna ay ku dhaawacmeen sida wararku ay sheegayaan 4 askari. goobjoogayaal ayaa inoo sheegay inay maqleen jugta qaraxa oo ahaa mid xoogan kaasi oo laga maqlay deegaanada u dhow halka uu qaraxa ka dhacay waxaana qaraxu si gaar ah ugu dhacay duleedka Balcad ee jidka Galabasra. dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi khasaaraha dhaliyay waxaana ay sheegeen inay ku dileen askar ka tirsan kuwa ilaalada gaarka oo ay gudoomiyaha degmadaasi Balcad. ma jiro wax wara ka soo baxay mas'uuliyiinta amniga gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan maamulka degmada Balcad oo kaga hadlayaan qarax la sheegay in lagu laayay askar ilaalo u ah gudoomiyaha degmada Balcad. qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ee al-shabaab ee ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa inta badan waxay ka dhacaan degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Islaan Ahmed, Bulsha TV, Johar.